investmentiga ku bilow lacag yar sida 100 200 300 wixii haystid ku bilow. qof aan suuq ku jirin oo $1 ugu jirin ayuu ku leeyahay coin hebel gal maanta. ma ku jira suuq qofka $500 hal mar ayuu ku shubayaa. marka haddii suuqa uu daato qofkaas suuqa khasaaro ayuu usoo jiidayaa. wax fursadana kama faa'iideysan karo. discountiga suuqa uu bixiyana uu dhaafayaa. sidee ku bilaabi kartaa crypto investment? in badan waxay soo weydiiseen muuqaal ka soo sameey sida loo bilaabo crypto investment. haddaba muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa sida u saxan ee aad ku bilaabi kartid crypto investment. saaxiibayaal ugu horreyn aan isla fahanno waa maxay crypto investment. crypto investmentiga caadiyan waa bilowga maalgashiga aad maalgashanaysid suuqa cryptada ama aad ku maalgashanaysid lacag. lacagaha marka maalgashiga inka lagu sameeyo waxaa ka sugaysid waa faa'iido. magaca guud oo marka suuqan qaadan karo waa investment. investmentiga marka waxaan kala saaraynaa short term iyo long term. short termka laftirkiisa ayaan sii kala saaraynaa oo tradingka aad maqlaysid waa investment. qofku inuu maalgeliyo lacagtaas oo lacag ku helo. marka investmentiga waa sidaas. tradingkuna wax bannaanka ka investment ma aha. taas waa inaa ogaataa. haddaba saaxiibayaal waxaan soo fiiri doonaa sida aad ku bilaabi kartid crypto investment. qodobka koowaad waa inaad barataa cilmiga suuqa. cilmiga suuqa markii leeyahay suuqa waxaa rabtaa inaad maalgeliso oo lacag geliso. lacagtu waxay u baahan tahay aqoon ilaalida oo hafta. waxaa baranaysaa si guud fahamka suuqa. suuqaan sida u shaqeeya, investmentiga sida u shaqeeya, jaanisada furan sida looga faa'iidaysto. waxyaabahaasoo dhan ayaa baranaysaa. sidoo kale waxaa baranaysaa sida loo maareeyo khatarta risk management. sidoo kale sida suuqa looga faa'iidaysto, koynanka qaabka u shaqeeyaan, economicskooda sida u shaqeeyaan. waxyaabahaasoo dhan waa inaad ayadana barataa. kadib waa inaad furataa account. accountkaas waa exchange. haday ahaa lahayd Binance, Coinbase, Maxi, Bybit, Upbit. waxyaabahaasoo dhan waa furo kartaa. mid ka mid ah ayaa furo kartaa. kadib sidaas ayaa maalgashi ku samaynaysaa. haddaba waxaad isweydiinaysaa exchange-gee ugu fiican aan maaragtay ka samayn karaa maalgashi ama aan isku aamini karaa. saaxiibayaal waxaa jira exchange-yada qaar oo dhahaya uma baahnid KYC verification. waxaa u baahan tahay keliya inaad lacagta soo dhigatid maalgashiga aad samaysid. taas waa inaad ogaataa inay tahay dabin ama sirqoon lagu soo xerogelinayo. maalinkii aad siraadid wasdarow samee baasboor ama dokumenti kale soo geli ayay ku leeyihin. marka exchange ugu fiican aan kula talinayo waa Binance. documentigaaga diyaarso. haddii aadan lahayn document isticmaal qof kale documentigiisa. sidoo kale national ID-ga NIRA oo kugu shaqaynaya. taas waa inaad ogaataa. qodob kale ee muhiimka ah saaxiibayaal waxaa waaye inaad ku bilowdid lacag yar. investmentiga ku bilow lacag yar sida 100 200 300 wixii haystid ku bilow. taas marka waxay sababaysaa haddii suuqa hoos u dhac uu yimaado inaan khasaaro badan ku soo gaarin. marka wax yar ku bilow si aad wax yar u qasaartid haddii khasaaro imaanayo. kadib markii wax yar aad ku barbaratid kadib lacag kala suuqa keen. kadib maalgashi saxa oo buuxa samee. intaas waxaa kugu xiga inaad dooratid coin saxa oo aad maaragtay ku aamini kartid lacagtaada. saaxiibayaal waxaa jira coinan shitcoin oo qashin ah oo tuugo ah oo scamarisa. waa inaad iska ilaalisaa. doorataana coinanka saxda ah oo real projectiga leh. markaan waxaan isla fiiri doonaa khaladaadka ugu badan ay sameeyaan dadka raba inay sameeyaan investmentiga. ugu horreyn qaladka ugu horreeya ee aan mar walba fahmi karno waxaa waaye dadku inay lacagtooda hal mar suuqa wada geliyaan. tusaale qofkaan wuxuu haystaa $500 oo keliya. $500 hal mar ayuu ku shubayaa. marka haddii suuqa uu daato qofkaas suuqa khasaaro ayuu usoo jiidayaa. wax fursadana kama faa'iideysan karo. discountiga suuqa uu bixiyana uu dhaafayaa. marka waa inaad lacagtaada kalabar suuq gelisaa, kalabarna bannaanka dhigataa si hadhow jaanisada dambe ama discountka suuqa uu samayhayo haddii laga faa'iideysto. qodobka labaad ee dadka investmentiga samayhayaan waxaa waaye inay raacaan ama ay dhegeystaan hadallada dadka aan suuqa aqoonta u lahayn iyo dadka aan suuq ku jirin. waxaa laga yaabaa YouTube channel ama Facebook qof wuxuu soo dhigay ama X qof wuxuu soo dhigay inaad iska qaadato. tusaale inaad tiraahid coinkan maanta waxaa waaye qarxaya wuxuu sameynayaa 10x inaad iska qaadato oo kale. waxyaabaha noocaas ayaa la diidayaa. ogow dadka mar walba yidhaahda coin hebel gado wax uu aqoon u leeyahay malaha suuqa. coin hebel anugu ma samaynin
tala bixinna kama samayn karo, garantiina kama samayn karo. Okay, keliya uu qofkiina u tilmaamo jaaniska waxyaabaha furan iyo waxaan u arko, isagoo uu baaritaan gaara sii sameeyo, baaritaankiisana ku go'aan qaato. Sidoo kale qof aan suuq ku jirin oo $1 ugu jirin ayuu ku leeyahay coin hebel gal maanta. Okay, ma ku jira suuq qofkan. Waa barnaamijka yani dadka maaragtay dadka kala dhageysta ee la kulmaan waay. Waa iska fiirsaa. Saaxiibayaal, qodobka saddexaad ee ugu weyn ahna qaladka ugu weyn ay sameeyaan dadka ku cusub investmentiga waa inay gataan shitcoins, memecoins, qashimaadka dhan oo suuqa yaal inay gataan. Qofka haddii uu gato memecoin ama shitcoin waxay ku sababaysaa khasaare runtii aad iyo aad u badan. Waa inaad ogaataa shitcoinska iyo memecoinska 99.9% inay yihiin scamers ama tuugo. waa inaad iska ilaalisaa. Marka saaxiibayaal, shitcoinka ha ku bilaabin lacagtaada ha haligin. Qodobka noociga waxaa waaye qofku inuu isticmaalo istiraatiijiyadaha fudud ee maalgashiga. Istiraatiijiyadahaas waxaa ka mid ah DCA, Dollar Cost Averaging. DCA-ga waxaa waaye habka ugu fudud ee loo maareeyo khatarta suuqa ka imaan karta haddii suuqa daato oo kale inaad lacagaha mar kale hoos kasoo geli kartid haddii suuqa discount siiyo. sidoo kale inaad isticmaali karto portfolio rebalanced inaad isticmaali karto oo hantida aad ku balance gareyn karto. qodobka ugu dambeeya waxaa waaye haddii aad samaysid investment gaar ahaan long term, haddii aad samaysid inaad sugi kartid waqti dheer oo aad dul qaadan kartid. haddii aad video ka heshay muuqaalka like saar, subscribe saar, saaxiibadan la wadaag. aad mahadsan tahay, wayna kulanti dambe iyo muuqaaladan xiga.